dagaalkii sokeeyey ee ka jiray dalka Yemen oo weji cusub yeeshay. Dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa isku khilaafay siyaasadda iyo qaabaynta dalka Yemen, iyada oo Sacuudigu aaminsan yahay midnimada dalka Yemen, halka Imaaraadkuna ay aaminsan yihiin in la kala qaybiyo oo koonfur iyo waqooyi loo kala qaybiyo. Xuutiyiinta ayaa iyaguna qayb muhiim ah oo ay caasimadda Sanca ku jirto gacanta ku haya, oo dalka Iiraan u taageero. Waxaadse moodaa in dalka Sacuudiga iyo Iiraan ay ka midaysan yihiin fikirka ah in midnimada dalka Yemen la ilaaliyo. Taasaa waxay sabab u noqotay in Xuutiyiinta oo Iiraan ay taageerto iyo dowladda tamarta daran laakiin la aqoonsan yahay ee dalka Yemen ka jirta ee Sacuudigu taageero in ay iyaguna isku fikir ka noqdaan in midnimada dalka la ilaaliyo, iyagoo meel uga soo wada jeestay in gooni goosatada kala qaybinaysa dalka Yemen meel looga soo wada jeesto Imaaraadka iyo gooni goosata uu taageerayana meesha laga saaro. Taasi waxay sababtay in dalka Sacuudigu uu gacan ula tago kadib markii ay fashilantay wadahadal, diblomaasiyad, cambaarayn iyo wax kasta oo hadal ah oo la isku dayey in gooni goosatada lagu qanciyo iyo Imaaraadku inuu faraha kala baxo. Ugu dambeyn Sacuudigu markuu gacanta u qaaday 24 saac ayuu u qabtay dalka Imaaraadka wayna ka baxeen. Halkaas gacan waxaa loola tegey gooni goosatadii oo iyagana lasoo afjaray. Maanta ayaa waxaa gacanta lagu dhigay magaaladii Cadan, waxaana ka tahriibay ninkii hogaamiyaha gooni goostada u ahaa ayaa magaalada Cadan wuxuu ka raacay doon wuxuuna aaday dalka Soomaaliya waqooyiga dekada Berbera ee waqooyiga ku taala ayaa doontaasi ku xidhatay. Halkaana wuxuu ka raacay diyaarad iyadoo la geynayo dalkaasi Imaaraadka Carabta. Labadan dal ee Yemen ku loolamaya waa Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay markii hore heshiis ku ahaayeen in dalka Yemen ay wada xasiliyaan, laakiin dagaalkii markuu daba dheeraaday kala siyaasad bay noqdeen. Imaaraadkuna wuxuu la soo baxay fikir ah in la kala qaybiyo dalka Yemen, halka Sacuudiguna uu midnimada taageerayay. Dalkan Yemen waxay kala ahaan jireen waqooyiga koonfurtu laba dowladood oo kala nooc ah oo mid walba United Nationka uu kursi ku leeyahay kala laba calana. Waxay midoobeen 1990kii iyagoo dhowr iyo 60kii xorriyadda qaatay oo mid waliba uu dal gaar ahaa ayay 1990kii midoobeen. 4 sano kadib 1994tiina dagaal baa dhex maray iyada oo ay doonayaan kuwan dhanka Cadan xiga in ay dib ula soo noqdaan gooni istaagoodii iyadoo laga diiday. Dagaal ba'aanina uu ka dhacay Cali Saalim Albiid iyo Cali Cabdalla Saalax 1994tii lagagana guulaystay kuwii rabay in ay waddanka kala gooyaan. Waa markii labaad ee hadda dagaal ka dhaco oo ay doonayaan inay dib ula soo noqdaan, gacantana loola tegey lagana awood batay. Run ahaantii dagaalkani waa dagaal siyaasadeed. Shaki weyn iyo walwal baa soo wajahay wadamada gacanka Carbeed iyo Khaliijka ku nool iyo dhammaan kuwan Afrika ku nool ee Badda Cas iyo Red Sea iyo Bab el-Mandeb jooga, iyaga oo walwal ka qaba in Israa'iil iyo Imaaraadku ay doonayaan inay wadamo badan kala qaybiyaan oo ay saldhigyo ka dhigtaan. Waxaa ka mid ah Soomaaliya oo lafteeda la rabo in la kala qaybiyo gobollada waqooyi galbeed, Burco iyo Hargeysa iyo Berbera in la doonayo in gaar loo gooyo saldhigyo laga dhigto, halka Suudaanna la doonayo in laba loo kala qaybiyo, Yemenna saasoo kale laba loo kala qaybiyo, saldhigyana ay ka dhigtaan Imaaraadka iyo Israa'iil. Taasina waxay soo dedejisay in dhammaan laga hortago fikirrada kala qaybinta wadamada Carbeed ee badda kor saaran. Yemen waa lagu guulaystay, Suudaanna gacanta lagu hayaa, dalka Soomaaliyana waxaad moodaa in loo qalab qaadanayo. Wadamo badan oo waxaa jira Sacuudiga ku taageersan fikirradan uu wado, waxaana ka mid ah Bakistaan iyo Turkiga, sidoo kale Masar, Eritrea, Djibouti iyo Soomaaliya iyo wadamo badan oo kale oo jaamacadda Carabta ku jira iyo dunida Islaamka iyo dhammaan wadamada saaxiibada la ah dalka Sacuudiga. Waxaad moodaa in European Unionka ha noqoto, Maraykan ha noqoto, reer galbeedka guud ahaanba inay ka aamusan yihiin dagaalka gacanka hadalka ah ee Sacuudiga uu ku qaaday dalka Yemen iyo Imaaraadka uu ka saarayo iyo dadkan gooni goosadka ah ee uu la dagaalamayo iyo siyaasadan gacanka hadalka ah ee uu Yemen ku galay Sacuudigu. Waxaad moodaa in dhammaan adduunyadu ay ka aamusan tahay oo green light la siiyey. Waxaad moodaa dalka Iiraan laftiisu in uu ka digtoon yahay in Yemen la kala qaybiyo, uu diidan yahay si aan Imaaraadka iyo Israa'iil u imanin meeshan. Waxaad moodaa Iiraan lafteedu inay la shaqaynayso. Xuutiyiintu dagaalkii iyo buuqii way joojiyeen. Dagaal baa ka dhexayn jiray had iyo goor loolan ah dalka Sacuudiga iyo Iiraan, iyadoo Xuutiyiintu ay dhowr goor Sacuudiga gantaalo ku dhufteen, iyagoo Tel Aviivna garaacay, gacanka Cadmeed iyo meeshan Bab el-Mandebna maraakiibtu inay maraan diiday. Waxaad moodaa dagaalkii inay yareeyeen iminka
oo ay u jeesteen dhanka siyaasadda oo ay isu diyaarinayaan in ay dowladda Yemen laga dhisi doono ee midnimada ah in ay wax ka qaybsadaan oo ay hab dowladeed u dhaqmaan. Markaasna waxay imanaysaa xoutiyiinta in la kantaroolo oo mar hadday dowlad iyo system galaan qaabkii jabhadaynta ahaa ee ay marba meel waddan ku tuurayeen gantaalada ama ay xidhayeen badda ee maraakiibta diidayeen waxyaabahaas inay yaraan doonaan sababtoo ah hadda waxay noqon doonaan dowlad. Barnaamijkeena intaasaan kusoo koobaynaa.